agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Shucayb Cismaan Maxamuud oo wehelinayo agaasimaha guud ee komishanka tamarta Soomaaliland mudane Maxamuud Cabdi Malow ayaa saaka ka daafuray hotel Mansour ee magaalada Hargeysa shirka rubaca koowaad ee ay isugu yimaadaan daneeyayaasha kala duwan ee aaga tamarta Soomaaliland kaasoo ay soo qaban qaabiyeen golaha ka shaqeeya tamarta ee loo yaqaano Energy Sector Working Group. shirkan oo ay ka soo qayb galeen hay'adaha dawladda ee u xil saaran horumarinta tamarta, shirkadaha korontada bixiya, shirkadaha ka shaqeeya tamarta cusboonaata, hay'adaha tacliinta iyo bulshada rayidka ah oo metelaysa macaamiisha korontada. ugu horeyn agaasimaha waaxda tamarta ee wasaaradda tamarta iyo macdanta mudane injineer Cabdirasaaq Maxamed Cabdi ayaa tilmaamay muhiimadda kulankaasi oo ah in daneeyayaasha kala duwan ee aaga tamarta Soomaaliland kaga tashan doonaan qiimaha sareeya ee korontada, ilaalinta tamarta iyo muhiimadda wadaagista xogta. geesta kale xiriiryaha golaha ka shaqeeya tamarta mudane injineer Axmed Cali Ubaxle ayaa xusay in muhiimadda Energy Sector Working Group loo sameeyay ay tahay inay fududeyso isku keenida daneeyayaasha kala duwan ee aaga tamarta Soomaaliland si looga gudbo caqabadaha jira ee la xiriira aaga tamarta Soomaaliland. marka maanta sessionkeenu wuxuu daaray yahay sidii aynu uga doodi lahayn waxna iskaga weydiin lahayn maxay korontadu qaali inoogu tahay inagoo waxyaabo badan iska weydiin doona halkaana maanta action point kala tagi doona haddii la idmo ka labaad oo ah appliance-ka aynu isticmaalno qalabka beeqaaminta tamarta korontada ee dalka yimaada iyagana aynu wax iskaga weydiino oo qalab ku habboon efficiency-giisu wanaagsan yahay sidii aynu u heli lahayn maxaa caqabadayn naga haysta iminka aynu u keeni lahayn dalka ka ugu dambeeya oo ah sidaynu xogta u wadaagaynaa sektorka oo ta ugu muhiimsan ah oo aynu doonayno inaynu forecasting-keena iyo low demand-keena aynu mustaqbalka hiigsanayno aynu ka heli doono sidee buu sektorku isugu furnaanayaa sidaynu xogtan u wadaagaynaa. waxaad ka garanaysaa wasaaraddu sida ay u danaynayso stakeholderskeeda ay mar walba kala tashanayso. wiigii hore waxaynu hotel Chess u joognay inaynu ka wada tashanaynay istiraatiijiyadda 10 sano aynu sektorka u samaynayno stakeholderka oo dhammaystiran inay qayb ka ahaadaan waxa halka ka soo baxaana uu noqdo wax uu sektorku leeyahay sektorka u adeegaya. waa sababta barkulankana aynu u samaynay balse iyaga isku iskaaraan xogtoodana ay meel ku wadaagaan meel loo socdana la ogaado. kulankeenu intaas u daaran yahay wuxuu noqon doonaa kulan wax isweydaarsi u badan oo u koobnaan doono prestige iyo waxaan idin la wadaagaynaa laakiin aan doonano wax badan aan idinka helo. anna ma jeceli inaan iminka ku rafto laakiin muhiimadda ugu weyn oo agaasimayaashuna iga dambeyn doonaan annaguna asan ESWG ama Energy Sector Working Group-ka oo ah platform runtii sida boorarkan yaryar ku cad qolihii aan hore noogala soo qayb gelin shirarkii hore aan nahay un platform diyaarisa meelaha loo baahan yahay in lagu wada hadlo wixii aqoon ah qof waliba ku jira qofka kale uu gudbiyo si aynu dalkeena iyo dadkeena horumar u gaarsiino. waxa hubantiya shirkadaha leydku ee dalkan maanta shida inay meel aad iyo aad fog ka soo bilaabeen ka samaynta ama isku dibaridka korontada. caqabado fara badan oo ku yimi dib fara badan ay ka soo dhaxbaxeen dagaalo sokeeye iyo burburkii dalka oo ka horeeyay intaba inay ka soo saareen oo maanta aynu leydkan inta badan meelo fara badan oo dunida ah runtii marka loo eego aad moodo inuu ka reliable yahay ama ku tiirsanaantiisa iyo jiritaankiisa inay ka mudan tahay inayna soo gaarsiiyeen ma hadda iyagoo la shirkadaha leydku haddana dadkii userska ahaa ama consumerkii ama householdkii ha noqoto ama shirkadihii doonaya inay horumar gaaraan oo leydka isticmaalaan ha noqotee waxaad moodaa inay caqabadaasi aad iyo aad ugu noqotay mid hortaagan oo meelna ay uga dhaqaaqi laayihiin leydka qaaliga iyadoo weliba garooshiyaha sidaan hore dee u yidhi aynu siinayno shirkadaha oo dhibaatooyin fara badan ay haystaan. waxaa jirta Hargeysa oo kale haddaynu tusaale soo qaadano waxa aynu aad iyo aad ugu dadaalaynaa sida boorama samaysay berbera tahay burca tahay ceergaaba tahay laascaanood naftigeedu markii ugu dambeysay ay ahayd inaynu shirkad keliya ka samayno dadkuna aanay u qaadan inay shirkaddu monopoly ka dhigayso. dhammaanteen waxaynu ka marakacaynaa muhiimadda ay qaranku u leedahay
in horumar laga gaadho tamarta korontadu inay horumarka waddanka qayb weyn ka noqonayso nolosha dhaqaale ee guud ahaan bulshada qarankeena caqabadaha waaweyn ee korontada waddankeena haysta oo qodobada ay maanta aan kaga hadlayno ay ka mid tahay tacriifadu waa wax lagu farxo maanta inaan ka hadlayno tacriifadii qaaligeeda seen u yarayna inagoo aynu ognahay xaaladda waddanka ka soo bilaabay dadaalka ay shirkaduhu soo sameeyeen oo engineer oo ninku personal u isticmaalo ay ka bilaabatay dhowr iyo soddon shirkadood ay Hargeysa ka jireen maantana 4 shirkadood oo u dhow inay gudoobaan insha Allah aynu rajaynayno inay hal shirkad noqdaan oo xoogooda ay mideeyaan laydhka waqtiyo aynu heli jirnay saacado kooban oo badnama jiray maantana 24 saacadood oo intuu naga maqan yahay ama cilad ay ku dhacdaa uu yar yahay ayaynu adeegaasaynu helnaa ujeeddada shirkan waxaynu si gaar ah u dul istaagi doonaa xal u eegidda qiimaha sare ee laydhka iyo qalabka laydhka ku shaqeeyo iyo muhiimadda ay leedahay xog isweydaarsigu qiimaha sare ee laydhka oo caqabad iyo dhib weyn ku haya bulshada iyo qarankaba ka wasaarad ahaan aanu ku howlanahay sidii wax looga qaban lahaa maadaama ay muhiim inoo tahay qaran ahaan iyo bulsho ahaanba inaynu helo laydh jaban oo aynu ku midaysannahay sidaynu heli lahayn laydh jaban waxyaabaha qiimaha iyo safety-ga kor u qaadaya isticmaalka tamarta waxaa ka mid ah qalabka laydhka ku shaqeeya ama ha ahaato AC-yo ama ha ahaato kaawiyado iyo wixii la mid ah inay noqdaan qalab aan luminayn dab badan oo aan loo baahnayn kaasoo sababaya in qiimuhu kor u kaco mararka qaar ratayadoodu ay hooseyso marka sidaynu isaga xog waraysan lahayn shirkadaha soo dejiya khaasatan qalabkay keenayaan inuu yahay qalab tayo leh isla markaana maadaama consumerku aanu warbixin badan ka hayn qalabka isticmaalayaan in dalka la keeno qalab korontadii isticmaalkiisu ay hooseyso oo shahaadooyinka caalamiga ah haysta qodobka saddexaad oo muhiimadda ay leedahay isweydaarsiga xogta in xogta la isweydaarsadaa waa qayb muhiim ah oo ka mid ah qiimo u dhigista tamarta marka shirkeenani wuxuu badaaran yahay in xogta shirkadaheena xogta ururinaya wasaaradaba si daahfuran aynu isu weydaarsano si aynu hadafka u gaadhno tamar jaban oo safe ah oo ka imanaysa ilo deegaanka aan waxba yeelayn oo aynu u guuro ilaha shidaalka ama dieselka ka imanaya ka wasaarad ahaanna waxaan ku taageeraynaa maadaama hadafku yahay in qiimaha la dhimo tamartana la jabiyo wasaarad ahaan wixii iyaga xaggooda ka saaranna aanu ku dadaallo iyadoo la ilaalinayo faa'iidada ay helayaan shirkadaha iyo dawladduba dadkuna ay helayaan qiimo u dhigma qiimaha tamarta isticmaalayaan ee caalamka marka hadafkeena guud waa ka ugu dambeyn waxaan rajaynayaa in kulankan noqdo mid midho dhal noqda oo inoogu dhaca xogahan aynu raadinayna iyo isweydaarsiga aqoonta si midho dhal ah dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin